وقيبتي لباد هولغلا أفطوب oo ay xarakada Xamaas ee iska caabinta Falastiiniyiintu ku qaadeen ciidamada Israa'iil kuna soo qafaasheen ama ku soo aftoobteen mid kamid ah ama qaar kamid ah ciidamada Yahuuda waxa uu ahaa howlgal ay mar kale ciidamada garabka military ee xarakada Xamaas Izadiin al-Qassam ku soo aftoobteen askari u dhashay Yahuuda kaas oo ka howlgalayay roondo waqtigaasi ku guda jiray kormeer ilaala ah gudaha khadka cagaaran ee ah dhulka ay Yahuudu qasabka ku haysato وهولغالكي lagu soo qafaashay askarigii reer Israa'iil ee Nachshon Mordechai Faxman falkani waxa uu dhacay intii u dhaxaysay 12 ilaa 14 bishii Oktoobar ee sanadkii 1994 waxa uu ahaa qorshe ay muddo dhan ka soo shaqeynayeen guutada Izadiin al-Qassam iyaga oo ugu dambeyn ku guuleystay in ay askari sarkaal ah oo sare gacanta ku soo dhigaan iyaga oo aanay waqti badan ku qaadan markii ay howlgalkaasi fulinayeen howlgalka guutooyinka Izadiin al-Qassam garabka military ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta xarakada islaamiga ah ee Xamaas ee reer Falastiin ayaa jawaab u ahaa xasuuqii waqtigaasi ka dhacay masaajidka Ibraahimi oo ahaa dhibaato ay waqtigaasi Israa'iil ka geysatay masaajidka Ibraahimi oo ay ku laysay dad badan oo Falastiiniyiin ah ujeedada howlgalku waxa uu ahaa soo aftoobida Nachshon Mordechai Faxman iyo in la gaaro markaa kadib heshiis isweydaarsi dhinaca maxaabiista ah iyagoo Falastiiniyiintu waqtigaasi doonayay in ay xabsiga kala soo baxaan hogaamiyihii iyo asaasihii kooxda Xamaas Sheikh Ahmed Yaasiin qorshaha kaliya ah ee ay hogaamiyahooda ku heli karaan yahay sida ay aaminsanaayeen in ay nolol ku qabtaan si ay ugu bedeshaan Sheikh Ahmed Yaasiin waxa howlgalka loo diyaariyay 8 xubnood oo si gaar ah ugu tababaran howlgallada noocan oo kale ah oo ka tirsan mujaahidiinta xarakada dhaqdhaqaaqa Xamaas ee al-Kataa'ib al-Qassam waxa la sheegaa in uu qorshahan soo diyaariyay hogaamiyihii caanka ah oo mar dambe la dili doono Yaxya Ayaash oo kaashanaya rag ay kamid ahaayeen Daariq Abu Carafa iyo Raqiib Cabdidiin waxa ay kooxda howlgalka loo diyaariyay gudaha u galeen khadka cagaaran oo ah dhulka ay Israa'iil qabsatay sanadkii 1948 kooxda reer Xamaas waxay askariga ka heleen isaga oo kamid ah askar ilaala ah kadibna waxay si kadis ah ugu qaadeen weerar loo adeegsaday baastooladaha aan qaraxooda ama shanqadhooda la maqal waxa ay ahayd saacadu waqtigaasi ku dhawaad 7 fiidnimo waxa ay goobta ku dileen 3 askari oo Israa'iiliyiin ah waxaanay gacanta ku dhigeen Faxman oo dhaawac fudud howlgalka ka soo gaaray waxay ku soo rideen gaari cusub oo ah kuwa dheereeya oo midabkiisu yahay madow waxaanay ula soo baxsadeen guri ay si diyaarsadeen oo ku yaala tuulada lagu magacaabo Bir Nabala howlgalku markii uu habeenkaasi dhacay kadib fiidnimadii Jimcihii Oktoobar 14 sanadkii 1994 waxay ciidanka Yahuudi isku dayeen in ay weerar ku soo qaadaan kooxda afduubka geysatay waxaanay soo weerareen oo ay xoog ku galeen xarunta guutada Izadiin al-Qassam ee gacanta ku dhigay askariga si ay u xoreeyaan laakiin isku daygoodii ayaa noqday mid ay ku guul daraysteen in ay soo xoreeyaan askariga laga afduubtay weerarkaasi waxa uu horseeday dilka askarigii ay Falastiiniyiintu soo qabsadeen marka lagu daro taliyaha qaybta duufaanta iyo askariga saddexaad ee Yahuudiga ah howlgalkan 3 kamid ah mujaahidiinta al-Qassam waxay ahaayeen Salaaxdiin Xasan Jaadallah oo 22 jir ahaa kana soo jeeday deegaanka Sheikh Radwan oo ka tirsan magaalada Gaza Xasan Taysiir Abdunabi al-Natshah oo 22 jir ah kana yimid magaalada al-Khaliil ee sidoo kale loo yaqaan Hebron iyo Cabdikariim Yaasiin Badr al-Maslami oo 23 jir ahaa oo ka yimid magaalada Qudus kaasi oo howlgalka lagu qabtay balse markii dambe ay badbaadiyeen ciidamada Falastiiniyiintu iyo sidoo kale laba mujaahid oo kala ah Maxamed Yagmur iyo Zakariya Lutfi Najiib oo hadda ku jira waqtigan xabsiyada wadanka Israa'iil kuna xukuman xabsi daa'in oo waqtiyo dambe lagu qaban doono howlgallo dagaal oo dhex maray Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta howlgalkani haddaba waxa uu ku dhamaaday dilka askar ka badan 5 askari oo Israa'iiliyiin ah iyo hal Falastiini ah kuwaasi oo weerarka soo qaaday oo weerarkii ay doonayeen Israa'iiliyiintu inay ku soo furtaan askarigii laga qafaashay waxa ay kooxda iska caabintu ku guuleysteen in ay askariga ay afduubeen muddo dhowr maalmood ah nolol ku hayaan ka hor intii aanu markii dambe u geeriyoon dhaawac ka soo gaaray howlgalkaasi howlgalkani waxa uu ahaa mid kamid ah howlgalladii ugu farsamada badnaa uguna cajaa'ibsanaa muddo dheerna ay warbaahintu si weyn u hadalhayeen taasi oo ay Falastiiniyiintu ka geysteen
gudaha khadka cagaaran ama dhulka loo yaqaano dhulkii 48 saaxiibayaal mawduucaasina maanta halkaas ay noo joogo la soco mawduuc kan oo kala ah insha Allah ta'ala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.